الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. waxaan rabaa inaan ka hadlo maalin waxaan ka hadlay arrin ku saabsaneed hoggaanka dalka 60 sano ugu dambeeyay laba beelood haysta. hadalkaas markaan soo jeediyay dad badan ayaa oo u badan dadka shabeellada hoose mid ka mid ah oo magaciisa xataa qariyay oo aan u maleynaa in hadalka loo soo dhiibaa wuxuu yiri annaga shabeellada hoose waa ka go'aynaa fay baqon. waxa waaye shabeellada hoose wuxuu yiri digil waxba kuma haystaan. gudoomiye baarlamaanka idinka haysta. gudoomiye baarlamaanka tartana loo galay dadka tartanka u galay jawaari la tartama ka mid ah. dadka la tartamay maxamed mursalaan ka mid ah. afar qof oo digil la tartamay. ninka ku guuleystay asaga xariiftimay waxa waa abaabulkiisa fiicnaa waa ku guuleystay nin marafuu noqday jawaari noqday markii labaadna maxamed mursalaan noqday. ciyaarta si kasta waxa u dhacday laakiin dadka tartamay digil waa ku jireen. hoggaankii ugu weynaa ee waddanka waa hoggaanka siyaasadda nabad sugidda. siyaasaddii Soomaaliya dhan la idin dhiibay ushiya dhigteen waxa ay ku dhigtaan ilaa hadda ma la yaqaano laakiin anagu waa ognahay baash iska dhig in la dhahayo cid kale ay banaanka qaadato. waxaa kaloo jiro saako warqabtid ninka ushaas dhigay tartan u soo galay asagoo gudoomiye baarlamaanka koonfur galbeed ay haystaan oo u soo tartamay maxaa la dhahay madaxweynihii koonfur galbeed. dad badan tartamay digila ku tartamay waa laga bari ciyaarta si kasta waxa u dhacay. waa goosanayna marka leedahay mirifle nin mirifle ah oo shabeellada hoose xilka hay ma jiro mana u socon laakiin xaquuqdiina u doodayna. tusaalahan degmada Afgooye 22 waa councilkeena saddex digil ku leeyahay deegaanka dhan digil aan leeyahay. xawaaye annaga waxaan rabnaa deegaanada naga maqan oo jubbooyinka oo maamulka Jubbaland inaan deegaanadeena la haystaa kuwan waa la haystaa marka leedahay waa go'ayna waa laga haystaaye councilada dhan oo degmooyinka ka jira shabeellada hoose saasla markan beelahan caadeystay waa go'ayna waxaan u maleynaa in loo soo dhiibay hadla la dhahay waa dareensannahay shaakada meesha ka socoto annaga kama harayno xaquuqda shabeellada hoose mar walba u taaganayno. dililkii loo geystaan ka hadlay reer Xaaji Gaabo kuwii diilka ahaa oo lagu laayay ceelashaan ka hadalnay taliyihii lagu dilay saldhigaan ka hadalnay gabdhihii la kufsadaan ka hadalnay isbaaradaas mar walba taalo 30 sano taalo ninka kaliya ka hadlaa. marka haddii hadal lagu soo dhiibiyo leedahay xildhibaan Idris xaquuqdeena ay mirifle haystaan beena sheegaysa miriflaha hadda baay bakol ciidanka bakol joogo 2 ku dhuga baydhow 2 oo kala wada qoryooda ayaga iskale ayaga soo gal ayaga waddanka difaacay. waxaa laga rabaa inaad waddankaaga waa la haystaa aad difaacay aniga walaalkaaga ah inaan garab kugu siiyo maaha in hadal lagu soo dhiibo. waxaa igu maqaalaha nin mas'uul ah xataa oo shabeellada hoose suulinta ugu sareysa inuu hadalkaas soo dhiibay oo niman kale oo maxaa la leeyahay oo dadka meesha haysta oo kamid inay hadalka u soo dhiibeen ninka magaciisa qoriyay oo ka soo hadlay beej. marka waxaan ku leeyahay shabeellada hoose waa dulansan tahay waa la haystaa ka bilow waa meeshan la dhahayo maxaa la dhahay loo helay meesha la dhahayo wixii ka bilowdo buur hakabo oo xagga ka ah waxa way deegaanada la haysto waa ilaa aad ka tagaysid digil waxa laga haystaa jubbooyinka xataa waa laga haystaa miriflada saas oo kale waa laga haystaa. war annaga walaalkaanahay wax garabkaagan taaganahay xaquuqdaana u dooraynaa. taliye ciidana la soo magacaabay taliye ciidan ma magacaabo nin digil mirifle ma magacaabo hoggaanka ciidanka dhan waxaa gacanta ugu jira nimankaas wasiirada ra'iisul wasaaraha xukuumaddan ra'iisul wasaaraha xukuma wala socotaan maxaa la leeyahay xukuumadda ninka xukuma taliyaha ciidanka oo soo magacaabay taliyaha ciidanka koonfur galbeed oo militariga soo magacaabay taliyaha ciidanka waxa waaye ciidamada qalabka sida waay kan booliska saas oo kale waa balidin siid. marka waxa waaye ha isku qasin shaakada macnaha nin wax loo soo dhiibay tahay. marka waxaan leeyahay annaga xaquuqda waxaan u taaganahay deegaanadan koonfur galbeed dhammaantood. koonfur galbeed waxaa la isku dhahaa Jubbaland iyo maxaa la leeyahay baay bakol shabeellada hoose dil isku daro iyo Jubbaland oo jubbada dhexe iyo jubbada hoose isku daro koonfur galbeed la dhahaa. xaquuqdeena maalintii waxaa la nusiyay oo xilka hay Xasan Sheekh. war dawladii hadda soo maray dhammaantood oo ku meel gaarka ah maxaa loo qaaday isbaaradan ciidankan Afgooye mukayga jooga oo maxaa la leeyahay
باورت $5,000 كقاعد حرمنا ولا لو إن الودن كا عن محلها ولا لانها وأدينا قاصة قول لانها هو إن ودن كاس وحكى لو نصف في جنكرة دجاجة أو نصف في جنكرة مركان ودن كاج وحوالها يستع أفرجينا الكوسنو يعني جدكي قبلها الوكوسنو يعني ولا اللي حسنو يعني ولا جهر جدكي ديارات هذا مجرد معيش له وارد ماشي مريس وحاول دتكي محلها فتح هذا ما حيش إلا هذا دتك وربحنا حتى مركان س محلها باي بكل عيدك ملتري الدولة إلى قرية أي عسكري قبل جحيم أي عسكري دت عيدك الجو ماشي وحوايا دولة دين وكتر سيء اسمه جيا دولة دي هدي نودي دي إمكانيات لقالية إن نسين لها وحوايا وجان كاس عن راجلنا مدحوينها جمهورية الصومالية إن نقلنا كرسي كاس هو فرديسنا وحقوها اللاي ساسي أوي دارو اللي إحنا سنة إسكوب بالدلاية حدا حكومة دان جرت وزير ذاتك نوع في هل وزير عمرنا وزير محلها أيوه لومي وزيره والجامعية أنت كل وحاول وجوه إهاني وحاول نيجي مقع وزيرة الله هوستيس أجاسمي على الجسم بس ولا ليش قيسونه وعي هاي مال وحاول دجالهم كل جناية لمن كان سنسكت عيني ناي ولا وصاد درو ولا روح لها وحاول وحبها إعلاني ما مكون فوق قلبك محلها إعلاني وحبها إعلاني محلها برلمان كي قالتين مدحوني كونفور قلبها قالتين حبين وحيكون هلا ترتنا يكون هلا عيارة السكستة وهلا عاد وهو كوجوليسي ذاك ترتمى كملها عليهم بدومية برلمان قلبها جرى مترتمى ذاك نلا ترتمى مرفلة سدح أفر وحيها ديلي بعد ولا نقوليس مركن حقين مرفلة وحول ببابي ما بابين عيارة ماشي كسرت وقتها ولا لو قال لي هاو شباب الله خاصين أرنتها كمهرينه أدينا مجوي كرتيد waxay ka tirsan tahay maxalla koonfur galbeed lixda gobol ay ka tirsan tahay saasa aaminsan yani cid goyn kartana male halkan aan u soo galnay wadankan waan dhameystirayna dadkaas xuquuqdooda waa helayaan. Assalaamu calaykum.